نفسدو ككع ديرانيا نفسدو ككع ديرانيا نفسدو ككع ديرانيا xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay hambalyo idinka
xaasaskiina caruurtiina hambalyo sanad guuradaas kow iyo lixdanaad sidoo kale shacabka Soomaaliyeed anigoo ku hadlaya codka madaxweynaha iyo codka shacabka Soomaaliyeed waxa idin leeyahay guusha qiimaha leh ee aad ka soo hoydeen dagaalkii maalin dhaweed idin dhaxmaray idinka iyo cadawga ummadda Soomaaliyeed waa ku mahadsantihiin guusha aad gaarteen ما شاء الله شعبك الصوماليات وإذنكو جيفا إذنك أياه قبات إذنك أياه دفاع وحا إذن ليا هاي همبليو 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 وفرحت أنيقا مانتي وحان هالكانو إميت إنان إذن كلا قيب قالو فرحت داس إيو ريرين تاس مركز تنا waxaan idin sheegayaa inaan idin garab taagannahay dhammaanteen xaqiiqdii maanta farxad ayay ii tahay inaan idinku soo booqdo jiida dagaalka ee Awdheegle oo aan idinkala soo qayb galo idinkalana qayb qaato farxaddii iyo guushii aad ka gaarteen cadawga ummadda Soomaaliyeed جد يجهديد كاه حقيقي واجب وطني نمو صومالي نمو إسلام نمو أياد جودتين ودلكينا أياد دفاعين إلهي نقرب كود وكبحي كوا حق أسعن وحان إذن الله يا هاي قول هم باليدا ما أنتو أهلبي طبنكي أبريل ولقى جوجو كوي اللي حدن جوردي إذن كحوق ذلك الصوماليات همبليو إذن كيردمان ريرهنا قيسكينا الذين همبليا أيا إذن لا يهاي حقيقة وحن صوت تيمانة وزيرة عافمات صوت أن أصوتينا وحكى لماها أنا جو باهية دينا كان الدوان ويجوه الرئيس مد عافمات أيان ربينا إنه دكوا عرقته ونسوا قربته سيدا وقول أقصيها بدن باهيها كلا أجره ويكملتها هاي دبوها بينتا من ريفومك هي مشارات كنا عيدا كعصب حوجا أيان ساري دونا إن شاء الله مركان كنا مجال مقدش واحد أوقاتان إن شعبك الصوماليات وحوجينا يودينا وكجيف لأنتي إنه عدوة وقبسن لها شعبك الصوماليات سادرتي وحيد الله يا همبليو أنت جوشة كنتي أنت كلها وعنت إلهي عافية أنت كل متينا ومجاهدين إلهي جنة الفردوس الله جيو وما سنتهين همبليو عيد الله يا هاي وبالله توفيق عيدك حوجة دلك الصوماليات gaar ahaan taliska ciidanka dhulka xooga dalka Soomaaliyeed waxay deegaankan la wareegeen 30kii bishii 7aad ee 2019 11kii bishii 8aad 2019 waxay halkaan argagixisadu ay ku soo qaadeen weerar ay isku dayayeen inay mar labaad ay dib ay gacantooda u gasho degmada Awdheegle oo ku bilowday baabuur qaraxyo aheed oo laba aheeday xaqiiqatan waxay kala kulmeen jab aad u fool xumaa marka labaad ay haddana ku soo laabteen waa 3 Abriil 2021 isla sidaas oo kale haddana waxay kala kulmeen jab ayadana aysan hilmaami doonin haddii dabcan aqliyadoodu shaqaynaysana tusi doona inay iska daayaan waxa ay ku jiraan oo faraha kala baxaan ma doonayo inaan ku laabto mudan ra'iisul wasaare barista saraakiisha iyo saraakiil xigeynta iyo alifleyda dableyda halkan fadhiya laakiin xaqiiqatanka ciidamada halkan ku sugan iyo meelo badan oo jiidaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu ku sugan yahay kamiduhu waxay ku jiraan halgan ay kula dagaalamayaan nimanka cadawga ah kuna xaqiijinayaan amniga dalka waxaan aaminsanahay xaqiiqatanka ciidanka halkan ku sugan ee argagixisada ay weerar ku soo qaadeen 3 bishan
waxay xaqiiqatan ka kala kulmeen wax aysan guud ahaan dalkan ama kuwa ajaanibta ha noqdaano ama nuucay doonaanba ha noqdaane ciidamada kala duwan oo ku sugan dalkan aysan kala kulmin ay kala kulmeen waxay kala kulmeen jab waxay kala kulmeen xaqiiqatanka wixii ciidanka halkan fadhiya loo soo carbiyay kala kulmeen farxad weyn ayay noo tahay markaan taa intaa uga gudbo maantay oo ay ku beegantaa 12 abriil sanad guuradii 61aad ee aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaad noogu timaado adiga iyo wasiiradaadii iyo wasiirkii gaashaandhigga jiidda hore ee ciidamadan ay ku sugan yihiin ana noogu timaado xaqiiqatanka waxay noo tahay farxad gaar ah waxay noo tahay dhiirigelin waxay noo tahay hawshii aan wadnay in aan hore ugu sii dhaqaaqno ayay runtii ayay noo tilmaamaysaa waan sii wadi doonaa idanka ilaahay waa u dhaaranay dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan gobol kasta iyo geed kasto ay joogaanna waxay u diyaarsan yihiin ilaa ay xaqiijinayaan nimanka nabadiidka ah inay ummadda Soomaaliyeed ka dul qaadaan inay la dagaalamaan kana saaraan aba ay ka soo waantoobayaan xaqiiqatan fikrada qalafsan oo ku jira excellency waxyaabaha kale dabcan gaaran uga wada hadli doona hadii Ilaahay yiraahdo guud ahaan qof kasto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed anigoo ka faa'iideysanaya wasiiradeena caafimaadka maanta maadaama ay nala joogto xubin kasta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan baahida kuugu daran maxay tahay maanta hadaa tira waxaan u maleynaa inaysan ka qaldamin waa caafimaadka waxa ugu horeeyo aqligiisa ku soo dhacayo qof kasta oo xoogga dalka Soomaaliyeed xubin ka ah hadii la weydiiyo maxay tahay baahida maanta kuugu daran culayska kuugu weyn hadii la yiraahdo isbitaalka ciidanka xoogga ku leeyahay waxaan marka hortaada ka codsanayaa iyadoo munaasabadii 12 abriil nagu beegan aadna runtii muxuu ahay ii sheeg muxuu ahay muhiim noogu ah runtii aragtidaada iyo booqashadaada maanta halkaana wasaaraddeena caafimaadka iyo guud ahaan madaxdeena qarankuba inay noogu soo jeestaan dhismaha isbitaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo anagoo u dabaaldegayna guulihii laga gaaray jiidaha difaaca ee Awdheegle iyo Bariire inaad nagala soo qayb gasho farxad bay runtii noo tahay ra'iisul wasaare indhahaaga macallin ku ah wixii aad soo aragtay xaaladda ciidanku aad soo arkeen indhahaaga macallin ku ah ma faahfaahinayo waxaan rajaynaynaa insha Allah raggaanu waxay diyaar u yihiin una dhaarteen qarankooda inay difaacaan waxay diyaar u yihiin duruuf walba iyo xaalad walba dalkooda inay difaacaan dalka kuma difaacaan lacag la siiyo kuma difaacaan garaado la siiyo waxay ku difaacaan moral iyo wadaniyad bay ku difaacaan nin lacag ku difaaca kuma jiro dhammaantoodu inta dhimato shahiiday iyo inta noolba oo meel walba jooga ciidamada qarabka sida khaasatan xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka dhulku waxay diyaar u yihiin saacad walba iyo xilli walba dalkooda inay difaacaan meeshaan dagaalkii wuxuu ka dhacay 3 bishan abaarihii 9 iyo barkii ama 9:30 oo xilliga dambe ah yaa Awdheegle dagaalku xabadu ka dhacday Bariirana waxay ka dhacday 4 iyo rubi qoladaana lagu soo horeeyay qoladaasna digniin bay ka heleen oo difaacay sii galeen runtii waxaan isleenahay nimankan nabadiidka ah hadda magac kalaaba dubba u helo jiriye jahadiid buu yiri meeshan 10 baa ka raacay aan rajaynayno inaysan ciidan dambe oo Soomaaliya ku soo qaldamin hadii Ilaahay yiraahdo waxaan u daynayaa hadalkan u reebayaa taliyaha xoogga oo runtii aan leeyahay guusha aanu gaaro ciidanka dhulku aan gaaray maanta ma aan gaareen haduusan ugu hogaamin taliyaha xoogga saacadaha uu difaaca soo galay xabadii baa wali dhacaysay waxaan leeyahay runtii nasiib baan u yeelanay inaanu helo taliya xoog difaaca nagula jira qofka waxa la rabaa waxa uu galay haddaan taariikhdu sheegin in la sheego taariikhdana sheegi doonta waxaan kugu soo dhaweynaynaa saacadu ra'iisul wasaare ayadoon markii koowaad iyo markii labaadba ku noqon doono difaaca ciidanka inaad timaado insha Allah aad marar badan nala joogi doonto hadii Ilaahay yiraahdo hambalyo 12 abriil oo ah maalintii ciidamada waa idin hambalyeynaya waa idin mahad celinaya difaaca aad ku jirtiin maalin habeen iyo maalin oo aad difaacaysiin umadiin abaalan idinkaga hayna
haddii aan magaalada jiifno idinkaan idinku jiifna aad iyo aada u mahadsantihiin ra-iisul wasaaraha maanta wuxuu iigu yeeray dabcan baahida waa la soconnaa laakiin aan markhaati ka ahaano wax allaala waxaad u baahan tihiin oo dowladda guud ahaan idinla tari karto gaar ahaan wasaaradda caafimaadka waa wada tagnay isbitaalka xoogga dalka ra-iisul wasaaraha waxaan isku dayaynaa insha allahu tacaala meel allaala meeshaan geli karno sidii xooggeenna aan isugu geyn lahayn in isbitaalkaas la dhiso la qalabeeyo uu noqdo mid ka tarjumi kara ama fulin kara baahida ka timaada ciidanka insha allahu tacaala waa mahadsantihiin mar labaad aad iyo aada u mahadsantihiin ilaahay jasadiina jannaha ka dhiga insha allah